kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal kooban oo aanu idinka duubayna halkan oo ah buurta Karamardha ee ah buur taariikhi ah dabcan maalmaha damaanshaadka ciidda ayaanu ku guda jirnaa wali oo maanta la maray maalintii saddexaad buurtani waa buurta ay inta badan magaalada Jigjiga dhalinyaradeeda iyo guud ahaanba deegaanka dadka ku nool nawaaxiga magaalada Jigjiga ay u soo damaanshaad tagaan isla markaana ay sawiraan iyo iyagu markaas ay muuqaalo iskaga duubaan jawigana ay u soo bedeshaan hadaba buurtani waa buur taariikh weyn ku leh dabcan bulshada Soomaaliyeed waana meelaha halganna kala duwan lagula galay dabcan sida idinka laftiinu aad ka dheregsantiin talisyadii Itoobiya sida Haile Selassie Mengistu kuwii ka horeeyay isla markaana meel weyn kaga taalo xoreynta marka laga hadlayo ummadda Soomaaliyeed iyo qiimkeeda waa buur kamid ah goobaha taariikhiga ah ee halgamayaal badan ay dabcan ay ku dhinteen iyagoo difaacaya sharafta dadka Soomaaliyeed buurtan waxaanu maanta joognaa meel ka duwan meeshii la istaagi jiray buurtan dadku inta badan dhinaca dambe ayay ka istaagaan oo wajahada xagga magaalada laakiin annagu maanta waaban ka badino waxaan soo istaagnay dhanka ay ka dhamaanaysay buurta waa dhinaca dambe dhanka shishe ay dadku dabcan inta badan ay sawiraanta ku galaan oo iyadu markaas balse laakiin annagu waanu ka ag bedelanay ama xeel dagaal miyaa la dhihi jiray ayaanu sameynay oo buurta xaggii dambe ayaanba ka soo istaagnay buurtu waa aad ay u qurux badan tahay waa ayna dheer tahay waqtiga imika lagu jirana waa waqti roobaad oo dabcan doog ayuu dhulku leeyahay buurtuna dabcan aad ay u qurux badan tahay balse buurta dabcan meelo kala duwan ay dadku ugu soo dawaanshaad tagaan waxana kamid ah buurta dhinaceeda ashisha la tago iyo dhinaca soke oo dhinaca imika aanu ka joogno annaga laftanadu in la yimaado maalmaha ciidda ayaanu ku guda jirnaa dabcan waxaanu leenahay ciid mubaarak taageerayaasha iyo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed dabcan daawada ama baraha bulshada nagala socda muuqaalkan yar ee kooban waxaan idinku talagalay buurta taariikhiga ee Karamardha dabcan oo aanu maanta ku damaanshaadaynay niski damano ka soo baxnay caasimadda Jigjiga oo aan wax yar xaggan naga xigta iga dambaysa dabcan oo iyadu markaas meelaha taariikhiga loo soo damaanshaad taga muuqaalo kale intaan idin la wadaagayno muuqaalkan ayaan jeclahay inaan inta ku soo gabagabeeyo saaxiibka Cabdiraxmaan ayaa kamarada iga duubaya waxaan leenahay soo dhawaada Karamardha waa goobta dalxiiska ee ugu dhow magaalada caasimadda dawladda deegaanka ee Jigjiga dadku waxay ku qaataan waqtiyo kala duwan waxa yimaada lamaanaha isjecel ee waqtigoodii xiisaha badnaa ee xiriirka ku dhex jira sidoo kale waxa yimaada qoysaska ciyaalka iyo ubadkoodana keena farxadna kula wadaaga dhankan aanu ka joogno waa dhanka ugu qalada yar ama ugu cidlaysan waa dhanka gabalodhaca ee dhinaca wajahada Baabili dhanka shishe ee xagga Jigjiga ah ama qorrax ka soo baxa meel aad ka marta ma helaysid waxa ka dhacday zaxmad midii ugu ballaanayd roobab baa shalay ka da'ay dhiidi iyo waxay ahayd dhiiqo dawladdu ma aynan laami u samaynin oo dhulku waa dhul burur oo carro jilicsan gaadiidkii socday oo dhan way wada siliteeyeen dhiidi bay wada galeen oo iska wada hor yimaadeen bajaajyadii boqolaal kun oo qof wax lagu qiyaasay oo dad ayaa buurta dhinaceeda saarnaa shalay iyadoo gawaaridi intay jaam galeen dadkii gawaaridi ka wada degeen baa roob yimid meel alla meel loo kala dhaqaaqaan la waayay ilaa xalay saqdi dhaxa dadkii la daad gureynay oo gawaari samafal iyo gaadiid kale oo maxaan ku dhahay meesha isaguna waqti qaadasho u yimid ay caawinayeen ay gurayeen dadka dumarka waxa lagu gureeyay gurada qabaalada kolkii gaadiid kale la waayay haddana sidii oo kale ahayd xaggan anagu waxaan ugu soo wareegnay inaan waqti degan oo midka ka bedelan zaxmadda iyo isjiidka ah aanu qaadano geedka iyo qofkaasina dhanka shishe ee xagga magaalada Jigjiga ee ay dadku inta badan u badan yihiin ruuxa gaadiid haysta uu soo fogaadaa dhankan uu soo wareegaa wadada waxaan ku soo dhaafaynay lamaane yaal gaadiid watay oo intay wadada dhinaceeda dhigteen gaadiidkii waqti wada qaadanaya sidoo kale dad sawir ku galgalaya sida annagoo kale anagu laakiin waxaanu ka sii jeclaanay inaanu jawiga iyo marxaladda iyo neecawda quruxda badan ee laga dareemayo dhanka gabalodhaca buurta Karamardha aanu idin la wadaagno waxa indhahaygu qabanayaan buuro aad u fog oo sida buurtii jinacsan iyo gursum deegaanka Soomaalidu lahaa ee laga qaatay hadda buurihii Baabili qondhoro buur la dhaho buurta iyaduna togan waaweyn ee faafan iyo jarariya ay ka soo butaacaan waxa kale oo ii muuqda buurta la dhaho gabagabo
degmada Tuliguulada hoos tagta oo iyaduna aan iga dheerayn sida aan arko sidoo kale markaad xaggan fiiriso waxaad arkaysaa buuro aad u fara badan oo qurqurux badan meesha aan taaganayna waa meel kore oo markii aad Karamardha timaado baad intaas oo dhan arki kartaa waxa tuulo iigu dhow tuulo aan maleynay inay tahay Xaadow waa magaalo qadiimi ah la wada yaqaano Xaadow waa magaaladii uu aad uga sheekeynayay abwaankii fanaankii da'da weynaaye Cabdi Haybe Lambad oo meeshii lagu qabtay oo iska dhigay bukaanka ambalaastana dhax seexday muuqaalkaas YouTube-yadu ku jira waa daawan kartaan Xaadow iyo beeraheedii iyaguna igama dhawo waa ilqabadka iigu dhow marka waxaan idinku baaqayaa ruux kasta oo nasiib u yeeshay inuu Jigjiga joogo Jigjiga ku nool inuu waqti qurux badan ku soo qaato dhanka Gabaludhaca buurta Karamardha oo uu soo dhaafo controlka ama checkpointiga magaalada Jigjiga lagaga soo baxo markuu soo dhaafana dhul beero oo aad u qurux badan oo isu muuqda oo aadan run ahaantii moodaynin dhulka geyiga Soomaalidu dabeecad u leeyahay waa dhul inta badan saxara ah waa dhul maxaan ku dhahaayay aan dhir badnayn waa dhul aan beero noocan marka galbeed dhul aad moodo buurihii iyo beerihii Kambala iyo Kenya galbeedkeeda iyo dhulkii qaboobaa ee beeraha lahaa maxaan ku dhahaayay geedaha baxasaafkeeda dheer ee lagu beeray iyo beeraha la degan yahay ee deegaanka ah aad moodaa meelahan ka muuqanaya run ahaantii waa cimilo aad iyo aad u qurux badan oo aad iyo aad maskaxdaada aan hubo inaad wax kala dareemi karto ku soo dhawaada Karamardha iyo taariikhdeeda isagama sheekeynayno Karamardha kolkii dhanka laga joogo aad u aragtayna markii dhanka kale laga joogana sidan ay noqotaa buurta madaxa fiiqan weeye dhakada u koreysana anteenadii Jigjiga FM baa ka muuqata ama ka taagan soo dhawaada mar kale aad iyo aad baan u salaamayaa saaxiibkay Muxiidiin Xarraga oo igu weheliyay muuqaalkan igana duubaya isagana aan ka duubayay tan iyo kulanti dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Karamardha waa goobta dalxiiska ee ugu dhow magaalada caasimadda dawladda deegaanka ee Jigjiga dadku waxay ku qaataan waqtiyo kala duwan waxa yimaada lamaanaha isjecel ee waqtigoodii xiisaha badnaa ee xiriirka ku dhex jira sidoo kale waxa yimaada qoysaska ciyaalka iyo ubadkoodana keena farxadna kula wadaaga dhankan aanu ka joogno waa dhanka ugu qalada yar ama ugu cidlaysan waa dhanka Gabaludhaca ee dhinaca wajahada Baabili dhanka shishe ee xagga Jigjiga ah ama qorrax ka soo baxa meel aad ka marta ma helaysid waxa ka dhacday zaxmad midii ugu ballaanayd roobab baa shalay ka da'ay dhiidhi iyo waxay ahayd dhiiqo dawladdu ma aynan laami u samaynin oo dhulku waa dhul burur oo carro